khatar laakiin aniga saa u jeedo 5G uu leeyahay yani ka hormaqnaatiis marka laga hadlo wuxuu leeyahay mawjaad waa taqaan mawjaad sababta Mareykan u diidayso China. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر هذا برنامج كان بودكاست كحلقة سدحات ما أنت أنا ما تشاف حنوة أحمد عبد الولي حرسي كسر ولا وصل ولا وبعد سنتها ولا هذا مدن أحمد عبد الولي حرسي وكل شيء مدينة الرياض عاصمة السعودية العربية كون يسال بقول سنة أفرتي وهجي دنا كون يفعل بقول يطمن أفرتي halka caasimada gaad wax ku bartay dugsi hoose iyo dugsi dhexe ilaa iyo dugsi sare dugsi sare wuxuu ka dhiganaa wuxuu u dhaxay iskuulkan Malik Khalid iyo Malik Abdulaziz oo xaafad ku yaalo Qubayga kadibna waxa waaye wuxuu u gudbay 6 bilood oo wuxuu aaday wadankan halkan Malaysia sida uu taqaanimbo 6 bilood oo course English ku baganay كده سعودي مكو صلابتي وحبرتي معهد أويو قالي مس كوليج أي تي وكوبرناي معهد نيو رايزن يا هل كان هذا كينيو نلشوغا إن شاء الله وحبوشي تسعوا وضع كان يوغاندي ماسي نوكسيدا مستوتو الموضوع عندما أنت سبيشال واي وآي تي مسا إنترنت سكوريتي إنترنت قبي أهانتس لكن إنترنت سكوت أديات دنكاس أيوة محل الله إن شاء الله كهد لنا مانتا يبحي غحسن سودو ولا المقلوات سودو هذه أنا قاعد عمو محمد عبد الله وأنا جلوي أحمد ما حكوا جعليسي أي تي يصوب كأكون نقاط أي تي كشيء هرت ولا على بحر بينا كوشة أنا 2014 markaa Malaysia aaday oo dhameeyay course-ka English-ka hooyo baa ku dhahay hooyo wax rabina caafimaad China ka barto gabar abtigayga dhalayna halkaas ay ka baranaysay caafimaadka markaa aabo wuxuu igu dhahay caafimaad miyaa rabtana barto wax ku dhahay wuxuu igu dhahay hadee isoo wax yar markaa wuxuu yani communication buu la sameeyay gabadhaana oo abtigayga dhalay markuu la sameeyay wuxuu soo dirtay يعني wuxuu ku dhahay ii soo dir waxyaabihii oo dabka ku baratid mise yani subject-yaasha oo aad caafimaad ku bagatid marka waa loo soo diray aabay u soo dirtay marka aabo uu itusay waa yaabay waxa dambiyaan hal maalin ku baran karaa Faadimo Abiib baa la dhahaa abaayo waa weydiiyay ku dhahay abaayo waxaan aabo u soo dirtay waxa ku barataa hal ma xawiyaan darsi hal maalin miyaa mise xawiyaan semester waxay ku dhahday waa semester laakiin aniga kullan caafimaadka waa kaniya jabay waan nacay markaa arkay waxyaabahaas badan kadib hooyo waxay ku dhahday oo ma rabtay inaad iska fadhisid waxa weeyaan inaad wax baratid markaa hooyo waxay ku shajicisay inaa oo IT-ga galo aabana hadhow wuxuu igu dhahay maxadka oo New Horizon gal habeenkan waxa gashaa jaamacada elektrooniga ma garatay abuu isii shajiciyay wuxuu ku dhahay yani subaxdiina wax baro habeenkina wax baro ani waa diiday because yani waa too much pressure ma garatay yani marka sababtaas weeyaan waxa sababtu bartay IT okay hooyana taqtagada eeda amalena abana taqtaga waxa may aabo wuxuu bartay biochemistry faculty of science buu ka baxay jaamacadda Malik Saud hooyana waxay bartay nursing waxay ka baxday college ku yaala xamar يعني ابو سعودي wax ku bartay waana okay muxuu insha Allah fa that's agan fiican waay adiga markaas waxa waaye saddex IT u gashay soo sidaas maan saas baa ugalay IT inta yani iska fadhin lahaa marka hadda IT-ga alxamdulillah yani waa diving baa sameeyay ma gartay يعني gudaha u sii gashay يعني si fiican hadda u bartay insha Allah waxa rajeenayaa associate degree-gayga hadda inaan sii kordhiyo oo يعني waxbarashadeedna ka sii wado Uganda hadhowna insha Allah haduu Ilaahay noo sahlo ina oo qaato insha Allah ila PhD ina socdo hooyana anoo yar ii duceysay waxay igu dhahday doctornimo qaado oo diinta qayb u baro Ilaahay daayin waliga dib kuma dhigo waxaan ugu bilaabay haduu Ilaahay idmo computerka iyo internetka totalba horta marka laga hadlo IT-ga mise computerka
waa caalam weyn waa caalam la mid ah caalamka caafimaadka caafimaadka haddeer waxaa jira dhakhtar oo takhasuskiis yahay indhaha mid maskaxda mid wuxuu ku takhasusay baatiniya markaa la dhaho caalamka computerka waa caalam weyn waxaa ku jira network waxaa ku jira security waxaa ku jira voice waxaa ku jira routing switching waa caalam weyn waa caalam maaragtay shabakooyinka saa la isku geliyo barnaamijyaadka mucaalijka tabaadul bayaanaadka markaa la iskala bedelanayo ta'miinka saa loo security ahaan computerkaadii uga aaminsid yani amaan fiican ugu samaysid say hackerska ay ugu soo xadgudbin securitygaadii oo information yaal oo muhiim ah say u qaadan oo hadhow blackmailing kugu sameyn IT-ga gabi ahaantiis waa intaas ya IT-ga gabi ahaantiis waa halkaas soo ma waa caalamkii technologiga IT okay information technology information technology guud ahaan aan u gudubno waxa hadda noo qoseeyo oo ah qadiyadan oo hackerska totally iyo qaabka la iska ilaalinayo qaabka u dhacayo qaabka la iska ilaalinayo total wallahi walaal horta marka la dhaho information security adduunka number 1 waxaa ah Mareykan oo waxaa jira wakaalada la dhaho magaceedii NSA National Security Agency la dhahaa aaminaysa haddaa kugu dhaho National Security Agency baa la ikhtiraaqay oo macluumaad adag laga qaatay waxaana qaatay macluumaadkaasa qolo oo Russia ma garatay oo hackers Russian ah marka la dhaho information security ثقرات way leedahay ضعف way leedahay meel يعني حتى شركooyinka waaweyn حتى waa يعني waa la hacker gareyn karaa mid amni يعني oo amnigeedii suban oo 100% ah ma jiro marka saas weeyaan caalamka information security walaal حتى waxa yani dad ba hadda ma aragtay dadka oo individualka ah hadda la rabo inaa oo la ikhtiraaqo waxa loo soo dirayaa raabit linka loo soo dirayaa link marka linkigaas حتى iyagoo iska fiirin bay galayaan marka uu galo qofka linkiga خلاص laptopkaadii mise computerkaadii على طول informationkiisii waxyaabaha dhan ku jira baa la qaadanaya marka dad badan oo iska galayaan marka caalamka oo yani hackerska ma garatay حتى hackerska yani marmar waxay ka ikhtiraaqayaan daabaca elektrooniya daabacada elektrooniga ku shaqeysa oo shabakada leh oo IP leh midka oo internet ku shaqeeya taas xataa way ka ikhtiraaqi karaan dad waxay umaleynayaan kaliya inaa laga ikhtiraaqayo computerka iyo mobilka kaliya taasaa laga ikhtiraaqaya hadhow haddaa la ikhtiraaqo haddii ku xiran tahay shabakadii globalka haddii ku xiran tahay halkaas wixii dhan kaa qaadanayaan ma garatay marka saas weeyaan walaal hadday sidaas noqoto taas macnaheed waxay la mid tahay inuu adduunka qof maanta oo badbaadayo ma jiro oo ka badbaadayo hackers صح macluuma hayagaata mise ha badnaato okay marka qaar mobilada waxaa kasaa mobile maanta dibkiisa uu fiicnaay oo cusub waa soo gadatay sidaan ku maqlay marka qaar mobilka marka hadda hackers lagu sameeyo dibka xataa ciyoo cunaa fa taasna ma keeni kartaa marka qofka applicationyaasha qaar fara badan oo websiteyaasha qaar laga soo degsanayo mise play store ka ahaado inay waxay wataan virus inuu ku jiro يعني waxa ka hadlaysaa tadbiiqaadka Soomaa applicationyaasha waxa jira applicationyaal oo hadda sidii waxa ka soo qaadaa tan ma aragtay marmar waxa jirtay moodo oo qofka wajiga iska dhigayo oday waxa weeyaan waa iloobi magaciisa face deep face marka taas waxa la dhahay Russianka caadi ku dhageysanayaan caadi telefonkaadii u ikhtiraaqayaan waqtigay rabaan inay kaamirada furayaan applicationyaal badan way jiraan walaal oo ma aragtay oo security si fiican yani si fiican aamin u ahayn okay laakiin waxay dhahaan applicationyaasha badnaanka waxa laga soo degsadaa like Play Store-ka ima inuu ahaado Apple inuu ahaado Play Store mise Google Play Store laba systemka Android-ka iyo systemka iOS-ka App Store iyo Play Store ka fa waxay dhahaan wax application walba halkaas ku joogo it is like 90% waxa waaye it's security yani high security no walaal horta taas ma garatay hadda yani information ku siinaya Facebook حتى hadda la dhaho mise Twitter mise Snapchat kullu mid
يعني شركooyinka oo maaragtay oo farcigood asaasiga oo مثلا Mareykan hadda Twitter Mareykan buu ku yaalaa Facebook Mareykan ku yaalaa Snapchat Mareykan ku yaalaa Instagram Mareykan ku yaalaa waqtigay rabaan bay information kala soo baxayaan adiga ka rabaan ma garatay wax aamin ah adduunka ma jiro xataa hadda waa u jeedaa TikTok Trump uu qeylinayaa wuxuu dhahayaa Chinese-ka waa ka xireenaa wuxuu ka baqanayaa wax kale kama baqanayo because wuxuu garanayaa informationyaasha badan ay ka heleen dadka oo Facebook galay Twitter galay Snapchat galay Instagram dadkaas yani macluumaad caadi ahaan bay haystaan waxaan ku siinayaa sheeko nin Europe jooga wuxuu la hadlay Facebook farcigood oo Europe ka yaalo wuxuu ku dhahay waxay siisay macluumaadka since bilaabay Facebook ilaa haddeera yani dadka like u sameeyay dadka comment u sameeyay dadka way siiyeen ninkii wuu yaabay yani waxay siiyeen taqriiban ilaa warqado gaaraya 700 ilaa 800 warqado oo maaragtay informationyaasi like u bixiyay comments ku galay marka waxaas dhan haddii ma garatay khatar amnigii Mareykan ku tahay waxaas dhan saaxib amaan security fiican ma laha marka okay marka la dhaho yani application yaasha dhan oo ku jira App Store ma ahaada mise Play Store waa same ay dhihi kartaa bad way kala duwan yihiin waxay dhihi kartaa application yaasha oo ku jiro website yaal caadi laga soo degsanayo iyo kuwa App Store ka laga soo degsanayo riskoodu waa halkii meel waa isku mid same risk يعني risk oo keenayin waa same may hadda adiga risk fiiri adiga kala saar labada mid waxa weeyaan application yaal way ku jiraan App Store iyo Play Store application yaal oo hadda soo dejisid qaar virus ay leeyihiin qaar waa la ikhtiraaqi karaa yani ku dhigeysanayaan ku jaajoosayaan qaar amaankeedu fiican yahay aniga tawa yani laakiin haddii dawladda Mareykan ay rabaan information ay ku dhahan Facebook مثلا ninkaana uu nagu soo xadgudbay saasoo sameeyay macluumaadna siiya way siinayaan yani marka la dhaho amni ahaan yani adiga amnigaadi hadda oo wax khatar sameeysid iyo wax qalad hadda sameeysid waa lagu keenayaa ma garatay walaal laakiin aniga waa ku fahmay adiga waxa ka wadid application yaal kalena way jiraan oo virus yaal leh xataa qaarna saliimna way jiraan aniga muu kala saarayo laakiin waa sida noqdada ku sheegay hadda amniga Mareykan يعني أمن القومي national security ربان أي معلومات أو قضية ضرر أجهزة مثل مشكلات مثل problem information كهذا دم بيقصو صار يعني تا حاجة تا أوكي موبايل هذا قال الحي سيناي بحكي موبايل مثلا على ده موبايل كا أنت أوكي أدو بلاد كولوميا مثلا كل سودة في جوديس ده 19 كجودي هي مية مثلا 18 كا أنت عدانو هاي ميل يوحوا هذه دبوا جيست عملنا موبايل سايفون كهالك سووا تجي dawladda markaas waxay ka codsatay company-ga oo Apple inuu information ka siiso ninkan passwordkiisa mobile gudaha inaa loo galo fa ma xayeysiinay ahayd baashaas oo ay isku xayeysiinayeen mise waxay ahayd baasha lama awoodo bal lama awoodi karo information qofka mobilkiisa iPhone-ka in loo gudbo haddii iPhone-ka waa taqaanaa wuxuu leeyahay يعني security ahaan wuu adag yahay ma garatay walaal yani wuxuu leeyahay waa taqaanaa iCloud iyo maaragtay waa sheeko dheer marka yani qofkii hadduu uu rabo yani مثلا hadda uu mobilka laga xaday yani Apple hadda khaasiyada wuxuu ku fiican tahay hadda mudaharaadkii Mareykan ka dhacday markii ninkii madawaa la dilay dad badan baa jabsaday matjarkii Apple mobile badan bay dhaceen marka mobilihii markay dhaceen sidee mobilaha ku soo celiyeen Apple dad walba oo mobilka dhacay mobilkiis wuxuu rabaa inuu furo uu iPhone-ka uu meesha ka dhacay waxa ku qoran message soo celi mobilka waa garanayna location-kaadi ma garatay marka dad badan oo mobilihii soo celiyay علشان xabsi ka baqanayaan okay taama diidani laakiin arinta ma ka dhacday midka cadaanka qof oo dilaya oo maleynay wax la mid ah xabsi oo galay fa mobilkiisa halkaas ugu tagay asi gabagaas ahayn information full story ma hayo kadib maxkamada codsatay company-ga codsatay inuu ninkan u fasaxan u allow gareeyaan maxkamada ninkan maxaa la baasuukas la jabsako sida macluumaad yihiin iyo qofka waxaan wuxuu yahay sida loo ogaado fasu'aashii waxay tahay ma dacaaya arintaas ma xayeysiin company isku xayeysiinay wallahi aniga sheekadaas walaal si fiican uma maqlin mana la socdo adaa hadda ii sheegay adna xadheeysa sheekada yani si fiican yani uma heesid Soomaa marka aniga wallahi taas ma gareebo waxay u dhici kartaa inay is xayeysiin tahay wayna dhici kartaa inaysan is xayeysiin ahayn ma garatay marka
aniga sheekada si fiican haddaa u fahmo waa garan karaa ma garatay solutionka ya inaan kusoo dego taasi dib baa u dhigana insha allah dhanka kambaniyaalkii waxaa ka hadli doonaa mobile kambaniyaalka soo saagaan oo Huawei ka mid ah taasa hadda maga dhacday faani waxaan u qaatay inay xayeysiin wax la mid ah tahay okay mustaqbalka soo socdo hadda wax walba ogtay wuxuu isku bedelay internet isku bedelay computer isku bedelay software isku bedeshay wax walba maanta shaqo walba aad qabsanaysid software kana kama maagmatid fa arintan mustaqbalku uma bedel waxa u gudbi kartaa dagaalka adduunka inuu isku bedelo electronic صح ha fa ta maxaa kale leedahay how you see it walaalow horta su'aalka ma igu soo celin kartaa laana si fiican waxaan ku dhahay mustaqbalka dagaalka adduun weynaha wuxuu isku bedeli karaa like الحرب التقليدية وحلو يقانو ها واقف فهمي يعني حكى ودا دجالك أو مثلا دجال أسلحة مثل دجال بيولوجي مثل دجال إلكتروني هدرا ها ورنتها يعني هدرا دجالك صوص عضاء ما هن دجال أو ما ركتي إن قريو إيو ما ركتي بومب إيو نوكليير السكتورة إيو ما هن ودجال أنا يح أبحيي إن بايو إلكترونيك ما قرتي مرة بايو إلكترونيك وبيولوجيكال ونقنكرا بيولوجيكال ونقنكرا ونقون كرانا ما أركتي إلكترونيك يعني هذا مرمر حركة إيران أو كفانة إني ما أركتي شركة مريكان معلومات كقادتي ويكليكس واتقانا معلومات كسربتو هاكرز كسيان إيو أنونيمسكا مركا إن دجالك الصوص هذا إن والله بحي ما أركتي قري قاضو إيو وحاسب دجال هذا سيدي كورونا ضد بدون حدا هيان China سميسي dadna waxay dhahayaan macquul maahan ma garatay marka insha Allah nataa'ijka sugeena laakiin say u eg tahay in adduunkan hadda yani dagaalaha khalaas wuxuu isku bedelayaa dagaal biological ah iyo biology iyo dagaal electronic yani macluumaadka la iska qaadana waa la isku xadidaya blackmailing baa la isku sameynaya yani waxa ka qaatay waxa wikileaks siinaya wikileaks hadhow faafinaysa marka saas weeyaan oo doogashada u dambeysay xataa dad dagaal galay oo lisku haystay maxaa la lahaa doogashada waa la dhacay laano doogashada badnankiisa waa electronic ah waa old version doogashada ma ahan codeynta oo Mareykanka ka dhaceysay midka dagaal ku soo baxay igu soceli codeynta maxaa la lahaa si doogashada intiqaabaadka oo Trump ku soo baxay waxaa la isku haystay Russia samaysay ikhtiraaq ها ورنتها waxay dhahayaan Russia ku soo tadkhulshay ikhtibaar intikhaabaadka way soo dhaxgashay asaas waa la dhahayaa laakiin in Congress-ka waa aragtay soo u maleynayo dadna way bari'eenayaan dadna waxay dhahayaan wuu jiraa laakiin ninka oo ma aragtay oo qaadiga ah oo hadda maxkamadda ugu weynaa maxaa la qaadiga maxkamadda qaadiga Mareykan waa iloobay magaciisa maahan wallahi waa iloobay magacii laakiin ninkaas qaadiga wuxuu dhahay Trump kullen maxaa magaciisa ii sheegay Russia way samaysay interfere yani tadakhul way samaysay لكن تدخل كطريقة أسمى ما طريقة إعلانات مياه ما طريقة كلامية يعني أنت طريقة باكرة ما قرأت هي أو لوجود دعم كرو صبرت لوجود سمينا يو. أوكي تاسنا حكي إنه سو إنه استعمالان لأنه سيستم كذا أو دوغشين كمان كهوا إلكترونيك أهنا إنه بدينا عملنا. هذا انتخابات كما كودا. إلكترونيك ويسمى. ها يعني وحكي هذا لسه طريقة اقتراع هذا أو انتخابات كواحد لها يا وحي أبضن تايب كوس كورونا شيرا إني هاتوساس إن بالد. أوكي متك كهوين. بالد. متك كهوين انتخاب دوغشين كو ترامب كوسو بحنا. ونورمال ما أهد مدة واحد خفر. تاس عادي والعديني شعبي وعدينيين وحين أكو عدينيين ملاها ما أركتي أو انتخابات كل قسمية لكن هذا واحد لها يا وحى ميلين باكر ميلين انتخاب يعني وحكو عدينا سام ميلين ترامب نوحو لها يعني وحكى بقنا هنا أو لزوره. أوكي. هذا اللي يقرأ هنا هو لزوري مقرتي مركا أنا نصاوم لنا يسكيورتي كودو أذكي هاي من الزوور كور لكن ودعي كرتين وانترفير دعو انترفير ودعي كرا سواء تشاينا مهاتو مس روسيا. أوكي. لكن إن كان هذا كسوق ذي بدنا نكاس توتالي هلا لأنه موضوع هنا كسرنا ومهم كأها. صح. نبكو ليه هي واي فاي توتالي هان وجوجل كجوا ما نبكو ليه هي تقاتي شيئا قاعدين حينها ما يدب ملها فأنت سيجي جاهل به ما دام أي تيم أنت. أنا هرت والله لو حكوا شيء إن دراسة كنديان لسمية أو studies إن واثق أنا قضية ضد كلابتوب كما أركتي قار وحي لابتوب كنتي كدالان وحي صار عن بوديهود
bowdyahay saaraan Ha. marka waxaa la sameeyey taxliil waxaa la keenay 2 laptop iyo 2 nudfad oo niman waa taqaana way fahamta soma Ha. tan laptop maxaa magaciisa laptop waxaa la dhigay hoostiis oo wifi leh nudfad nin tan kale laptop waxa weeyaan caadi ah oo wifi lahayn waxaa la hoostiis waxaa la dhigay nudfad nin waa la arkay labadood tii laptopkii oo hoostiis la dhigay nudfad oo wifi-ga lahaa baa yacni wuxuu soo saaray maaragtay aathaar salbiya oo maaragtay weyn caafimaad ahaan marka laga hadlo maaragtay carabi ahaan waxa la dhahaa xayawaanaat almanawiya Ha, xayawaanka mawaabi oo maxaa la lahaa. marka ani nudfad baa kugu sheegay marka waxaa la dhahay waxa weeyaan daraasad kanadiyad laakiin ani waxaa ka yaabanahay soomaalida qaarkood markay seexanayaan qaar wifi-ga waxay badhigaan qolka maaragtay hordada Ha. waa qalad because mawjaad buu leeyahay mawjaadkiisina side effect buu leeyahay say u badan tahay istadiyaal badan baa la sameeyey dad waxay dhahayaan ma lahan side effect laakiin dadka ugu badan oo maaragtay oo credibility-ga leh oo mustaqiyada leh waxay dhahayaan wuxuu leeyahay side effect sawaan naaxiyada hurdada wuxuu ku keenayaa wax la dhaho araq idraab fi النوم يعني مرمر daal. waa seexanaysaa after 5 minutes waa soo kacaysaa after 10 minutes waa seexanaysaa after 20 minutes waa soo kacaysaa yani noom mutaqatic baa la dhahaa noom oo kala go-an xataa waxaa la dhahay naagaha ma aragtay uurka leh khatar buu u leeyahay ani waxaa ka hadlaya halkaana dadka ma aragtay 24 hours wifi-good shidan yahay oo ma aragtay oo intaas sano yani taqriiban 5 sanawaat oo 10 sanawaat ma aragtay 5 sano 10 sano isku xigda 24 hours wifi-gii uu shidan yahay wuxuuna kuu yaalaa qolkii hurdada Okay, ka waran. su'aal. Qaabka qofka bini'aadamka waa ogtahay Google walba wuxuu dhisan qasab wifi inuu dhawaado oo qolku u dhawaado ilaa iyo how many meter markaas qofka loo dhexaysiya meesha siixinaysid iyo wifi ilaa inta loo dhexaysiina. wallaahi walaal aniga saa maqlay wifi-ga horta wifi-ga wuxuu fiican yahay habeenka markaa la seexanayo inaa la iska damiyo Yeah. ma garatay because khatar buu leeyahay khatartiisina maahan yani shay maaragtay oo dad badan ba waxay u arkaan wax caadi ah ma garatay oo iska shid waxba ma dhacayaan laakiin xataa ma aragtay islaamaha uurka leh waxa dhici kara wiilka dhalanaya inuu uu yani mushawah noqdo saddex indho saa yani waxa ka hadlaya ani halkan bini'aadan dhamaystiran. ها يعني بني ادم يعني ايش wax ka dhiman yihiin bani aadam wax ka dhiman yihiin waxa ka hadlaya halkana dadka oo 24 hours wifi-ga mawjaad buu leeyahay khatar ah oo ag fadhiya oo ma aragtay intaas sanadood maahan yani wax long term baan ka hadlaya short term kama hadlayo waxa ka hadlaya yani intaas sanooyin intaas saacadood wifi-gi fadhigu ku yaala fadhiga hadduu ku yaalo waa macquul ma garatay xataa adii haddana wifi-ga haddaa aragtid isagoo oo ku yaala fadhiga albaabkaa soo xiraysaa waxaa aadaysaa qolka hurdada for example hadduu gurigaada yahay 4 qol qolka hurdada wifi-ga kugu imaana macnihii maxaa waaye yani derbiguu soo dhaafayaa albaabkuu soo dhaafayaa wuxuu kugu imaanayaa qolka oo adiga hurdada ugu talagashay haddaa wifi-ga firtid wuu ku imaanayaa ma garatay marka wifi-ga mawjaad buu leeyahay mawjaadkiisiina side effect bay leedahay saa aniga akhriyey oo intaas maqaal mise article oo cilmi ah science ka hadlaya marka taas weeyaan walaal nuqdadaas harbinaa kuu sheego hadda waxaad ugu talinaysaa in wifi-ga la damiyo habeenkii marka la seexanayo wifi-ga wallahi wifi-ga dad waxay dhahayaan hala damiyo dad waxay dhahayaan yaa la damin ma garatay laakiin adiga hadduu kuu yaallo qorka seexanaysid waxaa fiican inaa la iska damiyo hadduu qolka fadhiga yaallo ما أركتي أذي حتى هاي مثلا قف 8 ساعات يعني 6 ساعات شقينا يا صباح ذي 6 ساعات مثلا إن هردية إن صدح مثلا بس ساعة شوقة يا جيم واحد هذا قف قريقة شوقة يعني أنا هلك واحد هذا يا ضد كوايا لها وقبضنان أو قريقة سكفردية أو قل كهردة دجانا يا واي فايجا أو مدة طويلة سنوات طويلة أثر وين بو سمينا يا ضد كاس Okay, dan gabagayga jirtay wifi qolkeed ku joogay waxaan u mooday inuu dib u keenin waxaan magal waxa dhig jiray iska daayay dib malaha baalka dib ma keenay waa laga saagay totally fa wallahi horta walaal jahliga ay keenay warunta laakiin aniga yani ani marba inaan dadka ka bajiyo laakiin ani waxa sheegaya waxyaabo akhriyay
oo laga sameeyey daraasaad iyo studies taasaan ka hadlayaa walaal macaan صح اوكي agana ahayd su'aalooyinka isku qalday agana dadaati inaan ku weydiiyo internetka total ahaanta wifi internet weli isku xigin halka mawduuca qaabka u shaqeeyaa qaab shaqadiisa maxay tahay ilaa iyo waxyaga adogaale ah ilaa iyo 1G ilaa iyo 5G u gudbi doonaa qaab shaqayskiisa iyo dib ma u keenaa dhanka maxaa la lahaa social media la isticmaalay dhanka kaska ka soo hadalnay mala awooda bogaameelka qaar oo hadhowtii su-aashan kadib ku xigo bogaameelka qaar messajiga la isku diraa messajigaas qof walba inuu awoodo yani inuu daabo karo messajiyaasha ku digtid walaal horta qaab shaqeynka internet su-aadka hadii laba qayb baa u qaybinayaa qayb waxa weeyaan siduu internet ku shaqeeyo qaybna waxa weeyaan informationka maaragtay private messageska horta dad badan oo snapchat isticmaala iyo twitter iyo facebook iyo instagram waxay u maleynayaan messageka markay ay ku diraan privateka hadhow tirtiraan inuu baxayo waa qalad ma baxayo wuxuu aadayaa seerfaraha oo maraykan ku yaala oo yani shirkad walba facebook for example haddaa ka dirtid maaragtay server waxaa jira khaadim maaragtay macluumaadka bayaanaadka dhan khazinaya يعني هذا الفيسبوك مركا لقى هذا يعني قاعدة بيانات كذي وقاعدة وين سيرفر كدوا خادم كماركتي ويعني وين يعني ولاقي هي عمارة ولاقي هي ماركتي باك داتا سيف كذا دا توين ماشي لو كيديو ها مركا واحد جرا أنا هذا هل كان واحد أدرى يا نصيحة قبلها يو ويرش الصوماليات سناب شات خاصة يعني سناب شات واحد جرا ويلل iyo gabdho masjaal isku dira oo maaragtay xun marka wuxuu maleynayaan markuu qofkii daawado khalaas inuu saas ku tagayo kuma tagayo wuxuu joogayaa databases kaasa iyo khawaadimkaasa ka hadlayo bayaanaadka حتى هدا أتجدد مثلا أو كده هدد إيسو صار information كاسا أو أذية مثلا information كاسا ضروري أربتد أذية شخصيا ويكوسو صار يعني ويكون هواكن مقرتي مركا taas aniga dadka Soomaalida kana saxaya Facebook Twitter Snapchat private kama aragtay caada bayaanaadka ma aragtay marka tirtirtid ma duulaya hatta Facebook hadda waxa ka soo qaadaa WhatsApp message ay soo dirtay waa tirtirtay kadib anigana ma arkin wali aniga adiga kaliya garanaya wixii ii soo dirtay uu qarsoomaya laakiin sharikada Facebook sharikada WhatsApp agtada ku soo geeyay taasana baa inaa walaal oo ku fahamsiiyo bogaam maxaa joojiyay lahayo may ilaa hadda wajah telegram kacmal iyo bogaamada halka ay soo baxeen waxa lagu dhahaa it is 100% it is 120% oo security high inuu yahay walaal wax walba aad ku digtid mise wax walba qof kale oo dhanka kaligaagsiisid lama arkay dawladda iyo xukuumadda joogsid ma arkayso aniga kama hadlayo walaal dadka ku daawanaya taas kama hadlayo like مثلا dawladda joogta Soomaaliya مثلا dawladda Soomaaliya dhex fadhisaa message qof kale oo tagtay qofka wuxuu ahaaba wax ina soo dhaysay mise bangi aad soo dhaysay mise wax walba aad wadanka khasisid لكن السوشيال ميديا ما استعمالها بحيثها ابلكيشن استعمالها هذا السوشيال ميديا ده استعمالها ولا سرتها هذه دن dadka saahaya hada soo xad gudubtid way heeyaan baaniga ka wada ma ka wada yani hada wax qalad dirtid inay iyaga qaadayaan oo faafinayaan oo hada internet way faafinayaan ma like dawladda hada waxa jirta mesela Sacuudi amal lagama isticmaalo WhatsApp ka kol aha ma laha hada ma dhaw fogana u moodaa ها كل مرة way xiran صح application كعمل تقانا أو BlackBerry موبايل BlackBerry هذا مش كده بس ودماضي خلاص وقت شركة كندية ويان وحولها جوي غيب ما أنت قف كالمسج دنك الأداء ودكتيت like واحد كالدولة الحكومة ده ما أوجا كرتو قف كمسج كاس قف كأودكتي ما حكومة ما أوجا كرتو غيب بس هو جوي حتى الدولة دوك عبادي حتى إلا يبالي جوجي الدوينها ما هنا مسا ولا أنا معلومات باكو شيء جاي dadka anaga ka hadlaya dad baa jira oo aaminsan markay private ka message ku diraan sidii hadda Snapchat markuu uu baxo message-kii laba jeer la daawado for example mar kale ku soo celin kartaa wuxuu u maleynayaa saas khalaas inuu yaani wixii tageen ma tagin qaacidad bayaanaadkaasi joogtaa taas aniga wada laakiin aniga kama wado inay iyaga soo qaadayaan waxaas ay hadhow blackmail kugu sameynayaan lacag dhasiin mise taas ma jirto laakiin waxa ka wada yani waxa garataa inaad muraaqab tahay oo dad kaleeto waxaad arkayaan laakiin ma faafinayaan way arkayaan مثلا انا هذا كنت صاير maanta مثلا waxaad tamishi inaad fulisid
magaakanka dowladda dhex joogtaa حلو arrintaasna social media isticmaasha application kala duwan حلو oo like securitykiisa waxa lagu dhahay waa high like telegram is another application company asi ma qaadayo ma geenayo laakiinse kuwa meesha joogaan oo ah ISA-ga oo ah maxaa la international security agency awood waxay u leeyihiin inta xag ay u gudbeen company inay ku codsaneen inay ikhtiyaar ku sameeyaan macluumaadkaas inay si fudud ku helaan haddii walaa hadda adax ka hadashay telegram maraykan ma laha ma wax iska laha, raashiya ma laha. laakiin haddii rabaan camaliyaad ma aragtay Ha. oo مثلا raabiyad iyo waxaas hadda laga hadlayo ha waxaa dhici karta mucaamalaad ikhbaaraatiya inay dhacdo ma garatay Ha. yani hadda mukhaabaraadka raashiya baa la hadlaysa mukhaabaraadka CIA da maraykan nacam ma garatay KGB-ga baa la hadlaya waxay ku dhahayaan qof baa saas soo socdo saasuu nuu sameynaa haddana adiga waxaa u maqlaysaa inuu uu aamin yahay telegram ha aamin wuu yahay ha wuxuu aamin u yahay qofka مثلا sacuudiga jooga Ay. oo isticmaalaya Mhm. oo waxyaabo siyaasi مثلا ka hadlaya Mhm. oo raba inuu isqariyo Mhm. aamin u yahay laakiin haddaad yani waxyaabo khatar dowladda ku samaynaysid waxaa garataa il kuwaardiyeynaysa oo ma aragtay securitygaadii halkaa security ma jira ay kuu dheheysa ha halkaan waxaa soo galay national security-geen ha waa lagu waa lagu fiirsanaa saaxiib okay wax walba tilaabo walba aad qaadaysid tallaab walba qaadida xataa yani waxaa jira haddana mucaamalaat bayna almukhaabaraat yani mukhaabaraadku isku xiran yihiin intaas ay cadaawad kor yani haddana arkaysaa raashiya waxay dhahayaan anaga dowlad shiyuuci baan ahnay maraykan waxay dhahayaan anaga waxaan ahnay dowlad capitalism ah oo raasmaaliyad ah waxaa arkaysaa inay cadaawad u dhexayso laakiin markaa la dhaho sheekada argixistaa imaanaya qaraxa imaanaya waxaasa waxay samaynayaan tacaawun iyo tanaasuq okay ma garatay coordination iyo cooperation bay samaynayaan tacaawun iyo tanaasuq okay markaas taas aan gudubno mid aan gudubno qaabka u shaqeynaya internetka totally internetka ha qaabka u shaqeeyo internetka dad waxay aaminsan yihiin inuu internetka hawada ku shaqeeyo ma garatay Yeah. iyo satellite-ka taasna waa sax laakiin qaybka ugu badan uu internetka ka shaqeeyo walaal waxa weeyaan keebalo oo badda hoostood ku jira yacni cumqigeed yani wuxuu gaarayaa salkeed wuxuu gaarayaa 8000 kilomitr yani ka waran yani oo waa biyaha badda dhexdeed yani dhulku yeela ها يعني تقريبا دولك يعني سلكي بدا لغو آسيا ها. يعني حتى كلون كان قرشي ما كان صومالي حلقو شيغو هدات قارد كلوك بدتك هم؟ يحسب بدتك ها يحسب الريتك ان حتى هدو حاولوا فيديو انا هدر كوها يا يوتيوب اسقو سمينا يا ما aragtay محاولد انه جرو ما جري كرو بكوز waa adkeeyay marka dawlad walba yani hadda Mareykan internetka adduunka dhow ka xiri kartaa dawlad walba keebalaha sabada hoos ku jira wuxuu u gaarayaa ilaa dawladeed laakiin ilaa wuxuu ka bilaabanayaa Mareykan ilaa dawladeed taqriiban waxa jira ilaa 300 iyo xoogaa keebalo oo Mareykan ka baxaya oo adduunka u qaybsamaya marka saas internet ku shaqeeyaa hadduu keebalahaasa ay darar gaaro mise hadduu dib gaarto أنا هذا مسج أو إيسو درت كم استقبال كره هذا قف مريكا شو هذا واتساب كقدره هلو دق وحركة سأسوق جاري مسج كي عن طريق الألياف معركتي الضوئية اللي تحت معركتي هوستي بدأ يعني نعم بدأ هوستي واحد ألياف مقرتي وكيبلها سا بو يعني يعني وح مرة سريعة مقرتي واحد تقريبا 1.5 تيرا بايت per second يعني could you imagine يعني marka oo rabtid macluumaadkiina qof kala bedeshadeen adiga iyo halkaan aad joogtaa adiga hadda Nairobi iyo qof Mareykan jooga surcadiis waa saa yani waa 1 taa macna waxay la tahay baalka totally ku mashaqay satellite ku mashaqay internet wuu jiraa nooc satellite wuu jiraa hadda marka adiga isticmaalaysid مثلا shariixada ma aragtay bayaanaadka ma hala sim card oo mobile kala gala wala silki baa la dhahaa laakiin tan guriga ugu badnaan waxa weeyaan tan oo ma aragtay internetka caadi waxa wifi-ga tan oo hoteelaadka ku yaala tan taas kullu waxay ka shaqeeyaan can طريق keebalahaas oo ka hadlayo keebalahaasna hadduu ay dib gaaro internetku ma shaqeynayo satellite yani waxa raba xataa ku sheego hadda xawaaladaha for example xawaalada tawakkal lacag مثلا lagaga soo diraya waa ka qaadanaysaa lacagta ka qaadanaysid for example waxa dhahdaa waa $500 qof kaleeto mucaamala bankiya buu ka qaadanayaa lacag kullu maxay isticmaalayaan internet marka waxa la dhahay mucaamalada yawmiyada maalintii uu keebalahaasa bixiyo lacag ahaan marka la dhaho waxay gaaraysaa ilaa taqriiban 5 trillion dollar yani maahan 4 bilyan
mise 3 bilyan mucaamalaad Waa yawmiya baa ka hadlaya 15 trillion 15 trillion oo dollar 50 trillion ay gaaraysaa yani adi hadda for example Daily. adi xaq ka qaadanaysa xawaalada lacag mid Ha. kale wuxuu ka qaadanayaa bankiga lacag mid Ha. kale wuxuu ka qaadanayaa shaqadiisii bankiga ugu soo dirayaan lacag Sax. marka aniga xaq ka hadlaya mucaamalaadkaas maaliyadda nin kaleeto businessman ah hal mar buu la baxayaa 1 billion hal mar buu la baxayaa mashruuc buu midna rabaa inuu dowlad kaleeto ka sameeyo Yeah. waxaa ka hadlaya mucaamalaadka dadka adduunka dhan jooga oo Ha. isticmaalaya kayaabilka internetka keebalaha marka waxay gaaraysaa ilaa 15 trillion dollar bir day ma garatay marka xataa waxaa ka hadlayaa keebalahaasa taqriiban kullu 25 sana Shan ilaa every 25 years Ha. waxay u baahan tahay siyaanad waxay u baahan tahay inaa la hagaajiyo Eh, hadday kharaab gaaraan haddii kharaab gaarin waxay gaaraysaa taqriiban dayactir ها يعني تقريبا واحد يعكر تاني سو حبنا قارن هدي واحد قارن عمري قد تقريبا 25 الى 25 الى 60 سنه ان كدب على واحد سمينيا بدلاد waxayna ku fiican tahay keebalahaas ma aragtay taqriiban mitir walba iyo mitirka kale waxa yaala jihaas tacaqub jihaaska ma aragtay oo ma aragtay lagu waardiyeeyo dadka ma aragtay oo mesela guriga lagu saaraya kadib guriga aad arkaysaa isagoo qarxay jihaaskaas ma aragtay طولكي ما أركتي إن كابلكا كله تقريبا أنت متر وحيا ما أركتي جهاز تعقب عشان سي أوجرتان مش ها عشان هذا سي أوجرتان مش خرابتي عن طريق الأقمار الصناعية سي محمد كابل كدن أرهدن بقرتي على طول ماشي ها سي أوجرتان مش خلل كجاري يوها جاتشيان فيكس وسميان اوكي taa macnaheedu waxay tahay internetka isticmaal informationka maalin walba isticmaalaan dowladda mareykanka si toos u tagaa boqolkiiba 90 يعني استعمال واحد سوشيال محل هاسي انترنت كان استعماله انفورميشن كان استعماله سي توسن وحو تغا دولة مريكانكا boqolkiiba 90 boqolkiiba 80 adduun hodan waxa ku dhahay dadka qaar waxay isticmaalaan internetka satellite-ka ma afaham laakiin waxa ku dhahay dowlad ahaan ka bila dowlad adduunka inta dowlad adduunka joogto adduunka dhan yani dowladahana adduunka dhan oo gaarsan tahay macluumaadka waxay ku gaarsan tahay can طريق kayaabilkaas xataa mareykanka ka soo baxo even China every country لكن China ما أركتي China حتى China ما أركتي هذا الإنترنت عصب بربان إنه يسمستان يعني شيء كذا يكون لكن حتى China ما أركتي إن كل الوحدة بان معلومات اكتشافان لكن أنا China تاس صراحة يعني رنت China أنا ما قرني لكن روح قرنا يا أدون كدن دولتها إنترنت كاستعماله إن استعمالان عن طريق الكيابل البحرية وما أركتي 97% يعني وحويان سجاشن إيو 96 يعني وحويان سجاشن إيو لح برسنت مجموع البيانات كعالمية ده وحي كمرتها ماشاس معاملات كمالية ده وكوش يعني هالكاس مرتها ها مركا إن حتى إن يعني هذا ضد استغراب يعني وحدها يعني واحد عصب مية معهن واحد عصب واحد كوري يعني لده مجلس إن أو مخترعة أو مجلس لده مورس waxaa la dhahaa Morse Samuel waa nin Mareykan weeyaan wuxuu sameeyay wax la dhaho telegraph dad wax badan u malinayaan jariidada kama hadii ka hadlaya jihaaska telegraafka oo murasalaadka awal zaman lagu sameeyay jiray تقريبا جهازkaas yani waa jihaaz cajiib ah ninkana Morse la dhahayo wuxuu ahaa painter waxa weeyaan ninka ma aragtay wax rasama yani Soomaaliya maxaa la fagshax ها marka ninka wax yani wajigaadi ma adoo halka fadhiyo buu ku sawiraya fagshaxan ha marka isaga waxbana kama galin internetka subhanallah waa taqaana waagi hore ma jirin gaariyaal isaga Washington buu deganaa xaaskiisana waxay deganeed meel iyo aabiis iyo hooyadiis waxay deganaayeen wilaayad kale oo xoogaa fog marka wilaayadaas afar cishay ka qaadan jirtay soo u tago markii dambe isagoo Washington jooga waxa uu imaaday nin maaragtay rasuul ah oo maaragtay faras la soo saaray faras wuxuu wataa farad marka faraska kugu imaanaya wuxuu ku siinayaa message-ka after 4 days maxalla baqshada insa barqi sidii yani risaalad buu wuxuu ku siinayaa message oo family-gaad ku soo direen marka Morse wuxuu qaatay message-ka oo reerkiis u soo direen uu fiiriyay abiisa message u soo diray wuxuu ku dhahay xaaskaadu way jiran tahay ka soo gaar marka wuu soo baxay intuu wadada ku jiray afar cishay ka qaadanaysaa maalintii labaad mise maalintii koowaad baa xaaskiis dhimatay marka aabihiis wuxuu soo diray nin kaleeto oo wuxuu ku dhahay Washington aad oo message-kana u dir u gee Morse ma garanayo Morse inuu wadada ku jiro ma garatay marka Morse afar cishay markii ka qaatay uu gaaray wuxuu gaaray meesha xaaskiis iyadoo oo dhimatay oo la aasay wuu wadna jabay marka wuxuu dhahay
sababta waxaas ii kalaftay waxa weeyaan message ma gaarin quickly ma gaarin ha yani xilli fiican ma gaarin marka wuu dadaalay ilaa uu soo saaray telegraafkana waa wax cajiib ah haddii la akhriyo waxa la dhahaa magaciis Morse baa aragtay baa koodad lagu sameeyay yani waagii hore jihaaskaas sidoo ku shaqeynaya for example hadda act waa ACT Soomaha act marka soo qaadid yani taqriiban wuxuu ku shaqeeyaa rumuuz oo shafraad ingiriis waxa la dhahaa code baa la dhahaa marka for example waxa weeyaan dot iyo dash ma garatay marka dodka waxa loo akhrinayaa dod dashkana waxa loo akhrinayaa did marka waxay noqonaysaa dod iyo did marka la dhaho c waxay u kala qaybsamaysaa dash iyo dot marka waxa la dhahayaa did ma garatay waa c marka waa cilmi kale marka waxa weeyaan koodad marka tiidana waxa weeyaan dash waa did marka isku xirtid waxay noqonaysaa act marka messageyaasha dadka saas ku gaari jirtay yani kullu ma aragtay alfabetaha ma aragtay oo xaraf walba ahaato biha ahaato wuxuu leeyahay code marka jihaaskaas oo telegraafka hadda aragtid waa jihaas jiddan qadiim ah ma aragtay waxa ka hadlaya 200 oo sano ka hor yani xataa dagaalkii Mareykan xarb ahliya markay isla dagaalamayeen dagaalka civil war dalka nukoogad markay isla dagaalamayeen Lincoln madaxweynaha Abraham Lincoln waxa ka hadlaya dagaalka Mareykanka oo waxa ka hadlaya dagaalka xarb ahliya oo Mareykan Mareykan ka hadlaya Abraham Lincoln confederaalkii rabay inay go'aan oo South America heeyay oo waagii waxay ahayd cabuudiyada laga saarayay dadka madow ma garatay marka wuxuu ka taabicayay akhbaarta iyo waxa telegraafka sadar kuu sheegayo wuxuu u baahan tahay kuudadayaasha inay xafidid carishaan saa u fahamtid waxa la dhahaa Morse code dadka oo bartay telecommunication ma aragtay telecommunication engineering Morse code Morse MORSE saa u maranayo yaa Morse mim wow RC ra'sin marka Morse waxa la dhahaa code ma aragtay yani mucaamalaadka saasay ahayd Abraham Lincoln halkaas buu ma aragtay ka taabacayay mise ka fiirinayay konfederaaliyiintii iyo ma aragtay dowladda federaalka dagaalka halkuu maraya iyo ma aragtay marka tatawur ninkaasaa soo saaray tatawurka oo keebalaha oo badda marka waxa isku xirnaa keebalka badda oo ma aragtay Canada iyo Irlanda waxayd awal keebalo oo isku xiro waxa weeyaan 200 years ago telegraafkaas ka shaqeynay jiray oo biyo badana oo dhaxmagay waa awal keebalo la isticmaalay maaha internetka waxa weeyaan telegraafka waxa weeyaan 200 years ago waa 200 sano ka hor okay waxa uu gudubno 5G كلنا ما هنا 1G أكسب لابنا سيدا تكون فاهمة 1G إلا 5G اللي سوى عم حكول 1G 2G يتيجي جي 4G 5G هذا مغنى الجيل الخامس سالو يقان 5G هرت مركا ردهو إن أبيه ورا dadka markay maqlaan 5G 4G waxay u maleynayaan geega waa qalad ma geega waa generation laga hadlayaa jiil 1G iyo 2G iyo 3G iyo 4G iyo hadda 5G baa galanaa ma garatay marka 1G waxa weeyaan taleefanka weeyaan oo ma aragtay mukaalamadaha kaliya lagu hadlayo oo wuxuu soo baxay 1979 saa u mareynayo waxa ku xiga 2G waxa weeyaan mukaalamada ma aragtay jawaalka iyo SMS-ka la isku dirayo waa taas walaal surcadii taleefankana ma aragtay oo soo baxay 1G waxa weeyaan 144 kilo byte per second ma garatay waxa ka hadlay halkana macluumaadka la isbedelayo ma aragtay waa telefoon kale halo kaliyo aha message kuma jogan halo kaliyo aha without message aha yani waxa ka hadlaya 1G ma adii ka hadlaysa sadar 1G waxa weeyaan taleefanka caadiga ma aragtay oo kii hore taleefanka oo caadiga oo weyn oo halo ii waran ma aragtay taleefanka weyn ka hadlaya 2G waxa weeyaan mukaalamaadka jawaalka ma aragtay iyo SMS surcad bayaanaadkiisna waxa weeyaan 144 kilobyte per second waxa ku xiga 3G waxa weeyaan internetka iyo mukaalamaadka videoga caadiga oo hadda kala hadlaysid qofka ma aragtay imo marka kala hadlaysid iyo ma aragtay
يعني اي فيديو وايد. يو سناب شات يو ما عرفتي وتيجي ها لكن مكالمات فيديو انا كهدر حويان تن او ما عرفتي ان يعني third generation. ثيرد جنريشن يعني واحد الجيل الثالث. الجيل الثالث ها جيل نمبر 4 اور 4G waxa weeyaan surcadii internetka la ziyaadiyey waxa laga dhigay 100 megabyte 100 megabyte per hour per second صح and hadda 5G oo موضوعك taagan oo dhaqaatiirta qaar waxa xataa taagan baalkan inuu dib badan keenay sida haday sheegto wifi inuu dib keenay qaar xataa waxay taagan waxa laga yaabaa kan dibkiisa inuu keeno inuu ciyaalka dib u keeno dad badan dib inuu gaarsiiyo ayadoo taa tahayna waxa la sheegaa 5G inuu yahay waa qaab casriyeysan oo xataa caafimaadka xataa wax u tagaayo isbitaalka wax u qabanayo qof maanta wadan kale joogo inuu qof halkan joogo by electronic ahaan internetkana isticmaala 5G inuu operation ku sameyn karo wallahi walaal en 5G ga wuxuu leeyahay positivity iyo negativity ma garatay marka positivitygiisa waxa weeyaan positivenimadiisa waxa ka arkaysaa yani surca khayaaliya weeyaan hadda ku sheego surcad naql bayaanaadkiisa inuu sadaqaysto waxa weeyaan 2 gigabyte per second ka waran 2 GB per second yani haddana waxa ku siinayaa example haddaad soo dejsanaysay wax yani video ma aragtay video haddaa ku sameynaysay download oo for example videogaas hadduu yahay 1 hour mise 2 hours hadduu wax ka soo qaadaa 1 hour inuu yahay oo 4K qualitygiisna markuu 4G ahaa hadduu kaa qaadanayay 1 hour haddeer 5G markuu yahay wuxuu kaa qaadanaya magarasa intee second ha yani waa hal daqiiqo wax ka yani markuu yani waa 100 ضعفigiis weeyaan 100 ضعف ha 100 jeer tobanaan jeer yani ilaa uu la gaarayo 100 buu ka xog yani surcad ahaan ka dheereeyaa ma garatay marka hadduu kaa qaadanayay maalan 10 daqiiqo 4G ga saa usoo daawangelaysatid kan wuxuu qaadanaya 10 second 10 second buu qaadanaya yani surca khayaaliya weeyaan laakiin mushkiladiis waxa weeyaan wax la dhaho kaharo maqnaatiisiya yani ma aqaan Soomaali waxa lagu dhaho laakiin amwaaj iyo waxay soo saaraysaa ma aragtay haddana for example haddaa laga soo qaado dowladana Mareykan intaas ay daqti saartay China يعني اتحاد الأوروبي European Union ku dhahday ha ka gadanina horta saa rabina ku sheego horta saddex shirkooyin baa jira oo waxaana haddana ku takhasusay horta Mareykan way hurdaa 5G marka la dhaho shirkad Mareykan oo ku jirta ma jirto inta ugu gudbin 5G ga waxaan arkaa magaalada aan joogno saxaafada aan Soomaaliya badan ta isli waa la bilaaway 5G waxa taaladiisi waxa meelahan aan ugu dhijiyo umaleedaa wadoonka qaadana loo taagay waxaad arkaysaa halkan muku ku yaalo ilaa iyo meel u dhow 1 kilometer meel la gaaray socodkiisa like waxa waay 500 meter ama صح waxa ka mid kale taala kale ka taagan oo 5G ah fa 5G ga iyo what's the difference 5G iyo mid kale aan isticmaalan 4G waxa la mid ah oo meel fog xataa ma arkaysa xataa taala meel taala ku dhagan walaal 5G ga surcadiisii unbelievable weeyaan unbelievable ana hadda ku sheegay yani filmka ka qaadanaya 7 daqiiqo hadda wuxuu qaadanayaa 10 second wuu ku soo degayaa marka download sameynaysid marka waxa la dhahay adraar buu leeyahay la dhahayaa laakiin aniga adraartaasa ma aragtay shirkooyin waxay dhahayaan ma jiraan adraar kale waxay dhahayaan wuu jiraa shirkooyin kale waxay dhahayaan wuu jiraa adraar ma aragtay marka aniga halka waxa rabaa inaan ka hadlo siraaca u dhaxeeya Mareykan sababtay ugu diidayso China muxuu yahay 5G ga waxay ugu diidaysaa number 1 horta intaan galin jawaabkaada su'aalkaada ka jawaabaya 5G ga ma aragtay 5G ga waa yani waa shay oo ma aragtay mutaraakim ah yani ma ahan hal wax wuxuu leeyahay antenna soo mataqaanid antenna oo internet ka shaqeeyo antenna khaas ah buu leeyahay antennadaasana yani waxa la soo saaray video dadka aaminsan ma aragtay conspiracy theory nadariyat almu'amara waxay dhahayaan virus corona isaga sabab u ahaa in uu faafo hal qof buu ku dhacayaa coronavirus kadib ma aragtay mawjadii baa qaadaysa qof kale u gudbinaysa marka maxay sameeyeen ingiriiskii
burjiyaal badan ay ingiriiska dhiseen Chinese ka dhiseen Britania Ah. way gubeen waa shacbiga sa sameynaya shacbigaasaa sameynaya markii corona bilaamatay ileen dad Ah. badan baa loved ones ka dhimatay maaragtay axbaabtiisa iyo aqaaribtiisa ka dhimatay ha marka wuxuu aaminsan yahay conspiracy theory dad waxay dhahayaan waa been dad waxay dhahayaan waa run khatar laakiin aniga saa u jeedo 5G uu leeyahay yani ka hor maqnaatiis marka laga hadlo wuxuu leeyahay mawjaad waa taqaana mawjaad waa baalka idaacada ku shaqeeya camal waa tagadudka waay ها وانتنada ka soo baxaysa ها. مثلا for example marka wuxuu leeyahay mawjaad oo sababi karta amraad khatar ah laakiin ani halka waxaan rabaa inaan ka hadlo sababta Mareykan u diidayso China Ha. maaragtay horta saddex shirkado baa isla tanaafusaya sameynaya competitionka saddexda shirkado mid waxa weeyaan Finlanda Nokia la dhahaa waa taqaanaa Nokia company Nokia Nokia miskiinka Nokia Nokia uu dhintay uu soo noqday hadda miskiinka Nokia loo bixiyay miskiinka Nokia haddana way soo noqdeen xoog bay ku soo noqdeen waxay rabaan 5G inay ay maaragtay door weyn ku ciyaaraan to play big role bay rabaan qarash badan oo ku baxay baalkaas 5G-ga qarash badan oo ku baxay kharash badan haddana billions bay bixisay billions dowladda ugu badan oo lacag bixisay waxa weeyaan China Huawei yeah Huawei ma loo dhowa waxa ku xigda labadaana ma aragtay haddana Ericsson oo ku taalla Sweden iyo tan kaleeto Finland ku taalla oo Nokia ma aragtay baa saddexdaas tanaafus sameynaya laakiin aniga waxa u jeedaa China inay ka horeyso intaasaa Mareykan ayada bilaabtay ha yani xataa haddaa irumaysanaysid Mareykan waxay ku dhahday Ingiriiska iyo duwalkan Itixaad Awrobiga Itixaad Awrobi madooga European Union waxay ku dhahday ha ka gadanina Mareykan way diideen Ingiriiska wuu diiday Faransiiska xataa saa u malaynayo way diideen way samaysteen kadib hadda corona markay arkeen ha dishonestki China markay arkeen oo coronavirus been sheegayeen human WHO been u sheegeen ay dhaheen coronavirus ما ينتقل يعني وما قد بيو قف ما أركتي transmission ما سمينايو مركا دولة بدن ويكسروا نقدين قرار كود وحدهن قبل كورونا ليس بعده يعني كورونا كهر هي كورونا كبعدي agreement كان سكومد معهن تشاينو بين بانو شيكدين دد كانين وانا قديشين marka nu aaminayno internet security information security ha ma aragtay okay waa dhankaas waa 5G oo totally iyo saddex shirkadooda hadda u socdaan ha laakiin aan xarbina ka hadlo technology ahaan iyo tijaari ahaan iyo amni ahaan xataa waa muhiim ma garatay laakiin dad hadda ma aragtay China ma aragtay marka la dhaho yani nahiyat lacag waa u baahan tahay marka oo 5G gadid oo dad badan ka gataan oo yani qof trusted tahay waa laga gadanayaa lacagna waa helaysaa halkan yani tijaariyanna waa muhiim amniyanna yani مثلا haddaa rabtid inaad dowlad garatid sirtooda iyo saas waa yani hadda China haddii مثلا Mareykan u gadaan Mareykan intaas ay diidan tahay way diideen ilaaha garanaya Biden inuu hadduu raayo inuu malaha gadan doono teknoloji ahaan xataa yani waa tatawurmaysaa thawrad yani hadda ثورة وين بيسمينا ما قرأتي في خاصة في عالم الطب دنك عفواتك نعم عالم الطب حيسمينا ثورة وين يعني يوم يسمينا صدق كله دكتورك وحو سمينا يا عملية جراحية عملية بسمينا يا أو جراحة عن طريق ريبوت كيا سمينا يا الانترنت كيف 5G واستعمالها واستعمالها تقنية 5G 5G كريه ما الانترنت كوحويان انت ساء شيء ما ركتي وصوغ يا انت ساء تكنولوجيا وصوغ حتى في الطرق وصوغ يا مركا دكتورك وحو سمينا يا عملية جراحية عن طريق تقنية 5G ما قرأتي يعني حتى ما ركتي ان ايش صناعيا وتطور بس حتى قارقه ما ركتي سيلف درايفنج او diyaaradaha ma aragtay technologiga oo ma aragtay oo diyaar lahayn auto pilot waxaas dhan way soo galayaan ha marka laakiin waxa la dhahayaa quwad mawjaadkeedii waxa weeyaan quwad mawjaadka taqniyadana 5G waxay la mid tahay dad dhakhaatiir iyo dad oo culamo ah dhakhaatiirka aniga hadda waxa weeyaan dad PhD ku qaatay cyber security waxaas waxay dhahayaan x-rayga واتقنا اكسري كسوما على فها قف كجريو وا اسكانك او جيك لا مغيا ها اكسري عمل اكسري هذا سمو تقاند انه
يعني يعني wuxuu leeyahay side effect Ha. حتى qofka ma aragtay oo bartay x-ray yani Mm. muddo mucayan buu leeyahay ha oo hadhow shaqada ka fariisanayo Naam. oo mubakran buu fariisanaya because waxay leedahay side effect x-rayga marka dad waxay dhahayaan x-rayga iyo 5G-ga mawjadahood waa isku mid waa isku awood ha sarataanna wuu keenaa amraadna wuu keenaa dadna waxay dhahayaan xataa yani dadkan conspiracy theory-ga aaminsanaa kuu sheegaya xataa haddii qaar baa jira oo maaragtay conspiracy theory aaminsan oo run ah ficlan nacam qaarna been ah way jirtaa laakiin hadda waxay dhahayaan mawjaadkaasaa ma aragtay baa kala naqilaysa viruskii mawjaadka Iyo hal anteenada kana yani لانه ما انت حتى قف مكا هاد قاعدين اسبتال وقاعدين oo lagu sameeyay maxaa la dhahaa x-ray qolka umka gudbgeysad asigaliisa la gelina takhtaaka xadaafka uu kasoo baxa fa marka baalka inta la shiiday mishiinka qolka uu kasoo baxay حتى wax baa la saaraya ma aragtay wax buu gashanayaa jacket saas Nacam. oo yani ashcadad waa ashcadad wax sahla maahan Awood ay Ma garatay? leedahay. ha marka 5G saas lagu qaarinaya xataa Israa'iil Israa'iil waa taqaanaa soo ha Israa'iil iyo Faransa Faransa iyo Israa'iil way diideen iskuulahood inaa oo taqniyad 5G la soo geliyo abadan abadan la ciyalku wax dhiba laba shirkad Britanniyana waa kala hadlayaa oo ta'miinka insurance ha laba shirkad oo insurance ka ha ah labadaas shirkad mid waxaa la dhahaa Swiss Eye mid Swiss waxaa la Eye. dhahaa Loyal of London Yeah. waxay ku jiraan wax weeyaan shirkadaha ta'miinka oo insurance ka qofka ha waxay dhaheen qof 5G oo ku- isticmaalay qof 5G cudur uga dhacay anaga waxba nagama gelin يعني ما تشمل يعني kama mid ah yani insurance lacagta loo celi doono mise caafimaad Maya, ahaan maya, isbitaal la yani geenayo anaga- kama mid ah bashaq kuma leeyna qof 5G wax kusoo gaabo labadan shirkad walaal waxay dhaheen anaga ta'miin ma siinayno qofka 5G oo cudurkiis hadduu cudur ka qaado anaga waxbana nagama gelin laanna way garanayaan akhtaarteed khatarteed bay garanayaan ma garatay nacam marka waxaa ka hadlaynaa halkan taqniyada oo 5G hadda waa dhaminay waxaa ka hadlayaa artification intelligence ذكاء الاصطناعي intaas oo aan khibrad u lahayn laakiin waa akhriyey waxa ugu muhiimsan waxa weeyaan oo dad badan yaqaanin waxa weeyaan waxay ka hadlaysaa halkaana ذكاء الاصطناعي ha artification intelligence wuxuu ka hadlayaa aalada iyo robotka iyo sidaa loo sameeyaa iyo siduu u qaadan doonaa doorkii bani aadamka Sax. iyo bani aadam waxaa laga baqanayaa Yani- dad badan inay shaqo la'aan noqdaan oo booskood bedel maxaa laga bootiyalka iyo computerka iyo system aga waxa waaye aalada inay bedesho Ah. booskood taas Yeah. waa mushkilad marka nacam marka dadna waxay dhahayaan khatar buu u yahay bani aadamka nacam dadna waxay dhahayaan inaad caawiya ha yani dad waxay dhahayaan robotkaas khatar buu bani aadamka u yahay Ah. dadna waxay dhahayaan cagsiga ma Yeah. garatay marka haddeer dad badan ma yaqaanaan dakaa الاصطناعي maaragtay aalada xaasibada oo maaragtay lagu xisaabo ha calculatorka ha calculatorka ya wuu soo galayaa dakaa الاصطناعي dad Naam. badan ma yaqaanaan xataa waxaa jira maaragtay Sofia ma maqashay Sofia ha ha Sofia Sofia waa gabadhii la hagaajinay mishiinka Sofia carabi taqaan Yeah. ka waran carabi taqaanaa carabi yani shay cajiib weeyaan maaragtay خاصة maaragtay marka laga hadlo robotka yani waxa arkaysaa wuxuu ku hadlayaa saddex language wuxuu ku hadlayaa intaas macluumaad buu yaqaanaa yani waa sidii qof muthaqaf camal ah ma garatay nacam xataa yumkin inuu kasii muthaqafsan oo yahay asig weliba wax sii baganaya yani macluumaad ugu sheego ma ahan wax walba u sheegtid oo aqoontiisa kordhiya wuu kubcinaa ha laakiin Automatically. waxaa garataa inuu bani aadamka qofkaasa oo bani aadamka oo maaragtay Oo soo daciifka sameeyey. ah baa Ah. sameeyey aaladana ha ma garatay marka waxaa dhici kartaa door badan inay dadka qaadato dad badan inay shaqo waayaan way dhici kartaa laakiin insha allah waxaan rajeynaynaa maaragtay bani aadamka inuusan shaqo waaynin because aalad ma anaga shaqo noo siinaysin bani Laakiin- aadamkiina mid aan ku sheegay taa xisaabta ka bixin kambaniyaha jira faga badan maanta oo magaalka ka dhisan oo kambaniya Google naftiisa kamid ah kambaniyaha kala taga badan jirta maanta iyo ay xaawilayso ee isku day weyn ah kharash badan galaa Tesla oo weyn Google ka naftiisa ku soo xig xataa magaca Oculus ay soo saartay waxa ku xig maxaa la dhowr kambaniyaha kala jirta oo wheel boxes ka samagayo kambaniyaha gaariga ka soo saaraan kamid ah qaar sax inaga waa inay sameeyaan ee soo saaraan aalad walbo
inay iskeed ku shaqayso like waxaa maqlaysaa maxaa la lahaa taxi oo self drive ah asa iska xeenay taxiga waxaa arkaysaa gaagaal self drive ah waa Sax. iska fadhiisanaysaa Sax. ilaa hadda xayeysiinaan gaaga keliga galaysa oo fadhiisanaysaa asaa loo isxaga meesha u baahantay geena kaliya u sheegaysaa صح wadooyinku ku soconaa صح waxaa kale jooga la soo saaray maxaa la dhahaa si alexa 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 waa baalkan oo iskale alexa waxaa iskale maya waxaa iskale companiyan I think google inuu leeyahay alexa والله- maya waxaa iskale amazon alexa ها amazona iskale just waad amagaysaa nalka demi nalka shid tvga ishid channelkaaga oo iigay alexa waxaa kale ku soo midka kale oo waxaa iskale microsoft oo ah ayadan maxaa la magaciisa iga maqan لا كله waxay leeyihiin waa runta waxay leeyihiin robotada intaas oo yani aniga takhasuskayga specialization kayga ahayn in daka istinaaci laakiin iska akhriyay oo yani xogaa kutub ka akhriyay waa runta shirkad walba oo weyn sidii hadda Amazon Google Apple shirkad walba oo ma aragtay oo yani nufuud yani Mareykan ku leh oo lacag badan leh waxa samaystay robot laakiin waxa laga baqanayaa halkan robotka maxay yani su'aal weyn baa jira robotka maxay uga fadilayaan bani aadamka caadiga ah waxa dhici karta robotka salary ma siinaysid bil walba sax laakiin intaa ku sameynaysid lacag ku kalifaysaa kulleen maahan balaash ma garatay yani lacag la'aan maahan robotka inta lagu sameynayo lacag ku kalifaysaa laakiin kulleen marka laga hadlo dakaa istinaaci waxyaabo badan baa jira waxyaabo badan maahan yani hal wax mise laba wax mise saddex wax xataa waxa kamid ah hadda mar waxa la tijaabiyey robot inta la keenay waxa lagu dhahay mas'aladana ma aragtay aljabra xisaabta aljabra ha xisaabtana yalla وأركنا سأقرأ مسح ميام سقرت ولا يا ويصحذي معلوماتك مركا يعني هل كان حكى هذا ليا يعني وحو صمينا يا نفس عمل كي بني آدم كما قرأتي إن روبوت كا ها إن يعني وح عجيب ما قرأتي حتى هذا ما ركت مركا على ده جوجل ومثلا هذه هذا ربتنا قرأت مثلا فور إكزامبل بنتاغون أو قردد أو قرأت بنتاغوف وكو صحيا صومها يعني ديومين واحد كو صباحيا هوس بنتاغون تاس حتى وحي سوق لسا الذكاء الاصطناعي مركا انتاس واحد باجرا او الذكاء الاصطناعي سوق ليو ماهن كريا ان روبوت كسا اني افهمي او اخريي مجالات بظن ما اركتي ان شاء الله نقول في ذا الذكاء الاصطناعي ان اضرارتيدنا الهي نو حكرجيني انو نغا فوغيي ما غرتي لان هدا ما اركتي دد بظن او ما اركتي هدا ادونك هدا لا حسابي انت قفها عاطله بدين يسمع فما بالك هذا سمي روبوت او شغلي بني ادم ما aragtay oo shaqo la'aanta qabanaya marka qofkii shaqada dadka shaqo la'aan badan baa ku dhacaysa ma gartay laakiin anaga xarbna ma aragtay jaanibiyaashana kale to ma aragtay oo hadana waa ku sheegay Google مثلا marka qortid yani fawaid badan bay leedahay dhika istinaaci oo insha Allah xarbna ma aragtay jawaanibkaas kale oo positive ka inay ma aragtay insha Allah ku faafto soo macquul gal maahan mustaqbalka doodo ilaahina ma gaasi ilaahina ma tuso ilhumo waay mashii manade soo baxaan oo robotki wax la mid aha oo umada dad badan shaqadood ku waayo meesha ay ka shaqaleyn dagaal isna inuu galo markaas oo dagaal weyn lama dhacayo waxa dhacayo markaas dagaal waxa dhacayo aalada ibn aadanka waa sax laana hada muufiyaal xataa qaado hada taas ani ka hadlaya taas iyo mushkiladeed ma garatay yani in haduu u qaato hadii aalada qaadato shaqooyin badan oo bani aadamka loogu talagalay yani waxa dhacaya unemployment ma garatay dulmi weeyaan dad badan shaqo ku waynaya marka aniga taas ka hadlayay oo maanta ka hadlayay oo ku sheegay yani dulmigaas aniga ka hadlayay kaliya laakiin marka la dhaho dakaa al-istinaaci artificial intelligence waxay leedahay fawaa'id badan maahan kaliya saadar ku sheegay maahan kaliya in robot mise Sophia mise waxaan waxa weeyaan intaas wax yani hadda oo dad badan garanayaan ma madkir kamid ah isticmaalno ha marka aniga taas jawaanibkaas arabnaa ma aragtay kaleeto in ay ka yani ku sii badato laakiin dhowr sano koog waxaan arki jiray qofka bin aadan oo numberka telefoonka maskaxiiska xifdinaya 100 number 20 number walba waxa xasuustaa number koo ka fahamsiinaya bilaabka hadduu kulli yaqaan bilaabka iyo numberka inta u dambeeyo yaqaana mise wuxuu xifdin yahay oo maskaxda isku joogto save gagay 110 numberood min 30 qof
صح oo 10 number bilaabka ilaa idhamaadka 8 number adaan hataa meeqo imaana markaas dhawaad wuxuu imaanaa soddon qof min 10 number 300 oo number imaanaa صح يعني halka wax ka hadlaysa halkana xafdiga bin aadamka naftigiisa maskaxda qaabka u shaqeey jirtay ha wax صح wax maanta marka u digtay sergeant ila sameeyay dhahdid mise buug mise maanta isku jaamacadii waxna soo bagtay ablana marka dhaad wax soo soo saajigagay ninka uu yaqaana buuga mas'aladan buug fulana ku jirta inta ku midala wax kale ku meetaa maskaxdiisa isticmaala صح oo baxa buuga u baahnaa soo baxsana mas'alada meesha ku jirta safxada oo xasuusana oo akhrisana laakiin maanta waxa arkaysa aayad qon laftigeed qofka bini'aadamka marka aayadad waxay qaldo oo Google ku qogaa mise browser ku qogaa maxaa la mowqac albaxth fameesha waxa dareemaysaa inuu maskaxda bini'aadamka hoos u dhac inay ha yani itikaaliya dhacday ha maskaxda inay like maskaxda bini'aadamka inay dhimatay ha yani bini'aadamki ma aragtay mushkiladaas number 1 waxa weeyaan waxa u keenaysa teknolojiyadka teknolojiyaga yani wuxuu u faafaysaa يعني هذا المركز على صدق سنة كهر ما تشرين صاحب إنترنت ما في موبايل ما في يعني وحيابه بدب ما تشرين مركز هذا البني آدم كوحو قاري درجات إنه وحتى ما أركتي نمبر كموبايل أو تبن نمبر مثل تضبن نمبر إنه يعني ضد حتى لو حدي قاري قود حفظين كرين وصدق سنة أفر سنة قاري قود واو يا وين يعني ما حفظين كرو يعني ببرو بينه حفظه مسك مقلنا وده يا واحد وتا إن استمارة ده إن ويقول قرنتاي ما حد يسكت دالنا يا مركز بني آدم كوحو هذا الواحد عندي واحد له اتكاليه يعني وحو كو اتكاليه wax kale ma garatay digashaal ha yani sax waa saad sheegaysid wuxuu yani aalada wax walba ii sameynaysa maxaa yani hadda wax xisaabayo lacag den igu leedahay ha bishana den ba Soomaha noo dhaxaysay Soomaha meherad baa leeyahay Soomaha marka waa ka aaladu keenaya oo xisaabaya waa hore wax lagu xisaabi jiray plus la isku daraya Soomaha gacan ahaan maskaxdiisa ku xisaabaya ha marka teknolojiyada maaragtay side effect waxay leedahay yani waxay leedahay side effect leedahay positive iyo negative bay leedahay marka positive keedu badan yahay negative keeduna waxana kamid ah dad badan oo maaragtay saajisinaya iyo dad badan maaragtay lazy wax walba mas'aladaas qaabka ugu bixinaa is leedahay ya mas'aladaas ittikaaliyada is dhigashaalka qaabka ugu bixinaa wallahi aniga qaabka oo arkayna laga baxo hawaya bari aadamka inuu nafsigiisa horta wax la dhaho yani iktifaa daati qofka lahaado self sufficiency baa la dhahaa yani qofka inuu hatta naftiisa xaqarin qofka markuu uu sameeyo self deprecation uu naftiisa xaqaro tawa mushkilad dad badan baa jira oo marka ku dhaadid walaalo kaalay buugan akhriso mise waxaan baruux ku dhaha walaalo aniga maskaxdeedii waxa sama deeqdo nacam maskaxdeedii maskaxay way daashay maskaxdeedii way daashay marka waxa jira wax la dhaho procrastination mumaatala iyo ma aragtay ta'jiil iyo waxa jira qofkii oo wax kale ku ittikaalaya oo ma aragtay waxyaabahaas laakiin insha Allah ana xarajeynaya in dadka ma aragtay nafsigood ku ictimaadaan oo ma aragtay teknolojiyadana oo sidii ma aragtay gaari Ferrari amal u socota oo dheeranaysa inaysan qofka ka dhigin caajis hadoo ilaahay idmo dhanka kale oo jaamacooyinka qaag iyo jaamacooyinka dhan kambaniyada qaag jirta dadka waxbarashada ayay gelinaa maanta hadaa u tagtid shahaadada iyo wax kuma su'aala kuma weydiinay صح just wuxuu ku weydiinaa experience ilaa intee leedahay farsamada ma soo baratay ma soo shaqeysay xirfad ma leedahay ha xirfad ma leedahay oo wilba madaxweynahan marka Trump magdhow dhahay waxa fadalana qofka waxa aad u jecelnahay aan u baahnay qofka xirfadda leh shahaadooyinkiisa waxa ay ahaadaan maanta boqol qof haday maato oo shahaadooyin wataan xirfad la socdaan waxa laga inuu iigiyo qofka xirfadda leh kaliya inuu aqbalo والله هرت ولا الأنية مركو ترامب ساس دحي ولا السعودية حتى هذا نوع باش نوصلته جماعة ورن لكن واحد في عن ماركتي لبض إن على سلقة تحرفض إيو شهادة أكاديمي ما قلت واحد شرى شهادة واحد مفعلين على القليل لبض شهادة واحد ده شهادات احترافية مساعدات تدريبية بروفيشنال سيرتيفيكيت بعد بروفيشنال سيرتيفيكيشن iyo shahaadadan academic certification marka academic waxa weeyaan 4 sano 3 sano jaamacad علم نظري ها يعني ما علم نظري واكاديمي labadoodu waa cilmi nadari laakiin tan waxa weeyaan dowra 6 شهور baa qaadanaysa مثلا wax ka soo qaada Cisco هذا ما مقشي سيسكو سويتشكا iyo راوترها maaragtay hadda kofi internet hada aadid wax isticmaalayaan switch عشان mobilaha maaragtay computeryaasha dhan sida iskugu xiraan naqal bayaanaadkeedii iyo shirkooyinka xataa way isticmaalaan routerka wuxuu ku sameeyaa hadda مثلا hada oo adiga guriga ku haysatid mobile iyo taabacad iyo PC personal computer iyo laptop hada leedahay oo rabtid inaad isku xirtid wax isticmaalaysaa routerka isku rabadaya maaragtay shabakooyinka marka la dhahana ajizada waxa isku xiraya switch oo macluumaadkii kala bedelaya oo yani tanaaqul macluumaad khaasan shirkadka isticmaala marka ani halka wax rabina ku sheego
Trump wuxuu ka hadlayaa dadka qaatay shahaadooyinka ixtiraafiyada aha waxa weeyaan مثلا شركة سيسكو هذا shahaadooyin bay bixiyaan waxa ku qaadanaysaa for example bill يعني waxa CCNA baa jira CCNB CCIE waxay u kala qaybsamaan network security waxay u kala qaybsamaan voice haddana voice waa umalena inay bedeleen router switching marka waa dowra waxa qaada taqriiban CCNA iyo CCNB iyo CCIE haddaa qaadatid ha raatibkaada kama yaraanayo $15,000 bishii خاصة ها دول الخليج يعني Gulf countries أنا كهذا ليا مريكان CCNA CCN CCNB iyo CCN B CCNB MP CCIE تاوا expert كا CCIE inter network marka ta waxa CCNA waxa u baxdaa Cisco certificate network and associate marka waa mubtadi CCNB wuxuu baxdaa Cisco certificate network professional qofkan waa muxtarif yeah ta saddexda waxa weeyaan CCIE Cisco certificate inter network weeyaan inter network expert ida waa expert waa khabiir marka qofka qaata shahaadooyinkaas waxa jira dad oo India aaday Hyderabad oo ku qaatay ma aragtay sanad gudihiis inta saddexdaas dhan oo kadib Sacuudiga u soo laabtay shirkooyinka STC iyo shirkooyinka waaweyn u shaqeeyo 40 kun qaatay 40 kun qaatay ilaa haddana way shaqeeyaan ma garatay marka shahaadooyinkan ixtiraafiyada ma aragtay mise shahaadooyinkan tadriibiyada oo dowraad lagu qaadanayo oo yani waqti badan ka qaadanaynin baa lagu soo koobiyay haddana shahaadooyinka akaademika laakiin waxa fiican labada oo ma aragtay qofku waxa fiican qofka labada isla qaata akaademika halkaana oo 4 sano jaamacad iyo halkaana مثلا dowradahana oo مثلا uu ku qaatay hadda CCIE das ma sahlana يعني adduunkan wax adag ma jiro qofka hadduu wax isku adkayo way ku adkaanayaan laakiin hadduu xoog saaro ma aragtay bani aadamka waxa la dhahaa hadduu xoog saaro oo himmad qaado inuu buur soo dumiyo wuu soo dumin karaa marka haddaad saartid himmad inaa oo buug waxa weeyaan taqriiban oo yani waxa weeyaan 1,000 iyo xogaa miyaa mise 2,000 oo safxad CCIE ka hadlaya CCIE waa haddaa fahamtid waa 1,000 mise 1,000 ka yar xataa waa ku tusi karaa hadda bacda kun safxad mise ka badan weeyaan xataa waa ku tusaya laakiin waxa buugaas waxa weeyaan CCN B iyo CCIE oo la isku daray marka uu weyn yahay laakiin ma weyn laakiin si aad loo fiiriyo qofka akhriskiisa iyo waxba shaqadiisa ku xiran tahay qofka hantiisa ku xiran tahay iyo hadduu leeyahay casiimad iyo israar ma aragtay soo dhameyn karaa ma garatay marka aniga intaas ani ka hadlayaa marka shahaadooyinka ixtiraafiyadu ka hadlayo Trump waa taas marka hadda marka laga soo qaado for example Cisco shirkadda Cisco maxay sameynaysaa Cisco waxay la hadlaysaa مثلا for example STC waxay la hadlaysaa مثلا هرمود sama xamar اتصالات weeyaan مثلا waxay la hadlaysaa shirkooyinka waaweyn اتصالاتka waxay ku dhahaysaa waxaan u keenaynaa qalabooyin routerka iyo switchka iyo waxaan u keenaynaa for example intaasaa qalab حتى تليفونها هدا شركوين أدو حكوا يلا سيسكو تليفونها قاركود مركب واحد ممكن قلبها صا مقابل كده محنا عربنا ضدك قاتي شهادوين كان إنا شقسيسين ديسكاونت أنو سمينا ديسكاونت كاسنا مقابل كسحويان ضدك شهادوين كان قاتي إنا وظيفة سيسين مركب علشان ساس ضدك قاتي CCIE وحي سيارات في عن CCNB قدك قاتي بيحاول سينا يعني راتب وسط ها لحد marka taasoo ka hadlaya Trump حتى EC Council shirkad la dhahay tirta oo yani ku takhasustay fi majaal al-amn al-akhlaqi yani waxa jira hacker غير اخلاقي iyo hacker akhlaqi black hacker iyo white hacker ha yani waxa la dhahaa taqriiban ingiriisi waxa lagu dhahaa crocker iyo midna waxa la dhahaa hacker yani ethical hacker akhlaqi marka حتى shirkadkaas علاقوين بيلليهين ما أركتي شركوين كأدونك كويالا أو ما أركتي أو اتصالات كيو أمن المعلومات كربيو سايبر سكيورتي كلها هيان شهادوين كانت قاتا شقصية أنا كنا وحنو كان إن قلب كديسكاونت أنو سمعنا إن مركز أساسا أودحية شركاين كان واوين مركز لقى هذلو إن سيسكو يو horta Cisco yani shirkad yar maahan waa shirkad ma sha Allah yani adduunka dhan marka la dhaho router ahaan iyo switch ahaan number 1 taqriiban waa iyada mise waa number 2 soo maray laakiin lacag fiican way siiyaan dadka waa xalaqada labaad lacag sheekaysid qofka labaad tahay yaa kale maxamed ka hogeey hadda lacagta waa wax muhiim ah lacagta loo nool yahay Soomaa taas baan ayada total loo noolaa laakiin waxa oo nolosha socodsiga ka mid tahay waa runta halkan waxaan kusoo gagabeynay 5G-ga iyo teknolojiga okay CCNA-ga ilaa CCIE-ga goorma ka hadli doonaa والله يعني هذا المكان لنا يعني
waa hadda waa kuu sheegay CCIE-da waxa weeyaan mubtadi'iga waxay qaadanaysaa taqriiban bil ilaa 2 bil saa u fahamtid oo imtixaanka uga imtixaanka yani imtixaanka waxa weeyaan multiple choices يعني waxa weeyaan khiyaraat mutacadid waxa weeyaan Soomaalidu way yaqaanaan multiple choices yani waxa weeyaan su'aal baa lagu siinayaa 3 khiyaar baa lagu siinayaa mid baa ka dooranaysaa ma adka waa baran kartaa taqriiban CCNA dadka ugu badnaan wax ku keenaan bil CCNA CCNB waxay ku qaadataa 5 bilood ilaa 6 bilood CCIE waxay qaadataa ilaa 9 bilood 10 bilood laakiin waxay ku xiran tahay qofka dadaalkiisa dad baa jira sanad ku soo xira 3 dood dad baa jira sanad ka yar xogaa intee ku qaadanaysa qofka maanta intoo bixinaya yani bagashaalkiisa misaakaas laakiin mushkilada saddexdan imtixaan maaragtay mushkilada waxa weeyaan imtixaanka oo maaragtay CCIE because CCIE waxa weeyaan CCIE-ga expertka waxa weeyaan 2 imtixaan mid waxa weeyaan camali midna waxa weeyaan theory mid waa theory midna waa practical kan practicalka waxa bixinaysaa $1 saa imtixaanka uga shid imtixaan kali galitaanka bagashaalka ku jiro برشاد كوجر امتحانكاس محمد عيسي او CCIE ga او expert ka waxa laga qaadaya shirkooyin ma shirkooyin yani wuxuu ku yaala amaakin mukhassasa yani مثلا India ku yaala Dubai ku yaala Mareykan ku yaala حتى ما aragtay India haduu ku yaala wuxuu ku yaala meel la dhaho Bangalore Mareykan marka la dhaho ku yaala meel maxadada Dubai ku yaala marka Imaaraadka la dhaho imtixaanka ku galaysa dad waxa ka qaaday experts ah imtixaanka waa intee saac u maleynaysa waa 8 saac 8 ساعات متواصلة 8 ساعة أو عملية 8 hours continue ها واحد لقوا سينايا سيناريو واحد لقوا دايا سيناريو قاس وحكى السوق هذا مثلا STC هذا وشغينا مشكلة صار كده كرت مركا نتص أو حلنا مركا إنا واحد ويان وما ركتي سفي عن أفهم سنتي سأبسد هذا فهم سنين كون $1 ويدو شيء بدون بهجرة ما ركتي أو أنت أتمت سمينا حتى الإنجليز هذا وضي مر أو شنشة may 4 jeer sameeyay 3 jeer uu ku dhacay markii afraad uu baasay waaragtay yani waqti ay qaadatay yani imtixaan adag waay ma fududa waa adagtahay ma sahlan laakiin qofka ma aragtay haduu uu go'aan gaaro uu ka soo baxaya qof bani aadamka ma aragtay casiimadiisa ka adag iyo israarkiisii ma jiro niyo halqad aad iyo aad u fiicnad sagaxatan macluumaad badan aan ka kubaysaday waxaan jeclahay inay sii socoto waqtiina uu ugu sii dhawaaday hal saac iyo jabaasi mageena كل ضمن إن شاء الله بإذن الله يوم موضوع عصب موضوع أنا كان لنا واحد بجديد هذا حسوق كده بس موضوع كلا جيت هذا إلى هيتمه كسورة برنامج كنا اسمه البودكاست وما هتصنتها ولا العمر سودوان في عم باي سودويسي وما ركتي خير كورة كنا يا دنيا آخر ولا وحن ما ركتي سوماليدا وحكرة كنا إني كفائدان نعم وحيابا عندن وهذا راشي مانتي هذا إلى هيد إن شاء الله نكلا سعادة إن شاء الله كلا سعادة برنامج كنا بودكاست كا دنكا ساوند كلاود كا مسا يوتيوب كا مسا فيسبوك إن شاء الله قوس يحل سوق لناي هذا إلى هيد مو نهائي لوينا برنامج كنا لساعتين موضوع والبو في عن وإن شاء الله تيله مقبل بنا سوق عدنو تضواد والبو halkan hoosna emailka ku soo qodo mise maxalla comment-ka ku soo qodo qof maanta daahaysi mise mawaadiic jecesha in laga hadlo mise qof maanta aqoonyahan ah aad u baahantiin cilmigiisa inaad kubcisatiin anakana u baahannahay nala soo xageegsiya wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maalin wanaagsan insha allah salaam